السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي وين ميلاد joogtaan bood salaamaya. Ilaahay idinku salaameeyay meelaad joogtaan ba Ilaahay idankiisa. Waa uma Khalid uma caaw gurigeeda dhex fadhida oo aan labadan bari meelna u bixininba sababtoo tahay waxa weeye waxa dhacay waxaan Ilaahayna ka sharduway. Ilaahayna ka sharduway meelaan joognaba Ilaahay idankiisa biidmillaah. Allahayna ka sharduwa. Ilaahayna nabadgeliyo meelaan joognaba Allahayna nabadgeliyo. Soomaali meelay joogtaba Allah ku xafido Ilaahayna ku nabadgeliyo iyo intii islaam oo matal Maxamedaba Ilaahay ku nabadgeliyo hayna ku amaaniyo Ilaahay idankiisa. Alxamdulillah Ilaahay baa naga wanaagsan. Soomaalina waxaan leeyahay Allah u gargaaro wal dunya wal aakhiraba Allah u gargaaro. mar walba anigu waxaan ka hadlaa Soomaali baan ka hadlaa Ilaahay Soomaali qalubteeda Allah isku soo keeno. Ilaahay wixii sharanaha ka xijaabo shar iyo shaydaanba dhibaatada iyo jirooyinka iyo balaayada adduunka laga sheegayna Allahayna ka xijaabo. adduunka Ilaahay cudur walbo la sheego waxa nooga daran nimanka siyaasiyiinta ah Ilaahay qalubtooda ha soo celiyo. hadda nin walaalkaayo ehelkaayo oo shisheeye daba socda oo adiga dhibtaada ka talinaya oo wadankaaga dhibtiisa ka talinaya waa kaaga daran yahay cudurka la sheegayo. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dadkeeni qalubtooda ha soo celiyo. dadkeeni wada danaystay noqotay bahashiina siyaasad bayba noqotayba bahashii siyaasad la dhihi jiray waxayba noqotayba muxuu ahayd beec mushtar bay noqotay. Ilaahay subxaanahu dadkan horta qalubtooda Allah ha soo celiyo. iimaankii baa ka tagay iimaanka Allah ku soo celiyo. goboleedyada ay ku shirayaan iyo meelaha ay isla daba socdaan waxa weeye Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wixii aan khayr u ahayn Soomaali weyn Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha ka soo celiyo. ma dhihi karna Ilaahay waxa yeelo sababtoo waa wadanka yagii waa dalalka yagii waa goboladan ka nimid mar rabno marka inaanu dhahno muxuu hayto Ilaahay sida ha u galo. waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qalubtooda ha isu soo celiyo Soomaali. Allah ha isu soo celiyo meelay joogaanba. Ilaahay dantooda ha tuso sababtoo waxa weeye nin shisheeye ku soo raacay dan Soomaali ma wado iyo dan muslim midna ma wado iyo dan muxuu hayto dadkaas masaakiinta oo aan daawona u haysanin cudurkan Ilaahay ha naga qabtee. marka waxaan leenahay Soomaali Ilaahay qalubteeda ha isu soo celiyo isaga raxmaane. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo shirka Garowe lagu qabtay waxa weeye hadduusan Soomaali dan u ahayn Ilaahay idankii lagu faa'iidi maayo. Soomaali weyn iyo gobolkaas lagu shirahay haddaysan dan u ahayn Ilaahay subxaanahu wa ta'aala khayrkiisa hana soo aadi sharkiisana Allahayna ka duwo. annagu gobolka lagu shirayaan ba u dhalanay oo dadkaas gobolada ka soo jeedaan inta yada dadka Soomaaliyeed inta u badan oo hadda ku jirta group-yadan waxa weeye waa dadka gobolada dhexe u dhashay oo dhan. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala marka waxaan leenahay Ilaahay qalubtooda ha isu soo celiyo Soomaali. maanta hadduu hooyada iyo aabahay dhaleen maanta waxa weeye hadduusan Soomaali weyn ahayn oosan danta Soomaali ka hormarin wax walba uusan ka hormarin aniga eheliye ma ahan waxna igama quseeyaan. aniga waxa ehelkayga midka Soomaali weyn iyo dhibteedu dhibaysaa aniga ehelkayga waxa ah ninka Soomaali weyn dhibtiisa dhibaysa wiilka yarka oo baadiyaha geela ku raacda dhibtiisa kay dhibaysa aniga dadkaygii oo ehelkaygii. laakiin nin asagu dantiisa ilmihiisa bas wata Soomaali oo intaas 10 milyan niman dantiisa wadana gurigiisa iyo ilmihiisa bas dantooda wata annaga dan inooma hayo Soomaaliyeed. dan waxa inoo haya midka Soomaali oo dhan ka naxaya dan inoo ah. waxa dan inoo haya midka ka cararaya muxuu hayto inay muxuu hayto shisheeye ina qabsado qolo kastaba ha ahaatee kaas dan inoo kugu jirto. dan nooguma jirto nin shisheeye nin dabada ka wata inaga dan inoo kugu jirna haddaan Soomaali weynahay dan inoo kugu jirtaa ma lahan. keena baadiyaha ku baqtiyeen dan ugu jirin kan muxuu hayto ariga xoolaha banaanka xoolihiis ku baaba'ayaan oo ku dhibaataysan baan dan ugu jirin kan magaalada joogo dhakhtar la'aanta iyo madras la'aanta iskuul la'aanta haystaan dan ugu jirin. dan waxay Soomaali weyn ugu jirtaa inay gacanta isqabsato inay shisheeyaha iska dugsato inay cadawgeeda u midowdo inay dhib walba ay u midowda baa Soomaali maanta dan ugu jirtaa. dan uguma jirto nin siyaasiya dan uguma jirto mid dantiisa wata
dan uguma jirto nin raba asagu inuu muxuu hayto xoolo jafjafto dan uguma jirto maanta Soomaaliya maali jiray bay joogtaa yaa maali jiray in la siraahday joogtaa ilaahay maanta xaqeed maanta iyo maalin kale ba ilaahay Soomaaliya xaqeedaha soo celiyo bad iyo biriba maanta cadow baa leeyna ku yahay bad iyo biriba kuwa muslimnimada ay nala sheegayaan khayr inoo rabin kuwa gaalada ama warkooda ayagu iska badaa ay tahay waxa weeye maxaa maanta noo danahan taagana maanta qof walba oo Soomaaliya waa siyaasi qof walba oo maanta dab ka leexda waa siyaasi sababtoo taa wixii ku muxuu hayto ku dib ku haya wuu jeedaa wixii dib ku ah wuu jeedaa maanta qof aan indhihiisu indhaha kala haynin ma jiro Soomaali wixii dib ku ahna qof walba waa u jeedaa waana dhibaysaa usha walaalka lagu dhiftay baa leeyahay adiguna bir u soo qoyso siyaasi walba nin walba oo wanaagsan oo mid allaale mid wanaagsan iyo mid xun kii dawlad noqdaa dawladdaas yiraahdaa markaas cadow ku kacaya sababtay taa ma rabaan in dawladnimo dhalato ma rabaan in wanaag Soomaaliya ka dhasho ma rabaan in khayr iyo liibaan dadkeedu helaan wuxuu rabaa nin walba asagu inuu dantiisa ka wato nin walba asagu inuu dantiisa ka wato rabaa nin walba asagu inuu xoolo helo rabaa nin walba inuu siyaasi ka noqdo muxuu hayto dawladaha jaarka buu rabaa isagu lacag helo xaq inuu asagu uusan lahayn inuu Soomaali ka helo rabaa mid dawlad mid muxuu hayto qabiilnimo kuugu jira dawladda wax ku qabanayn mid siyaasi oo tuugo ordahayan waxba ku qabanayn Soomaali weynay maanta hadii Soomaali weyn maanta hadii muxuu hayto siyaasi ina ka awood bato inagaan dad ahayn Soomaali weyn waa in isku duubnaataa waa inay wixii ku dib ku wada ay indho dheer u yeelataa waa in meelaha leena ka soo galay indho dheer u yeelataan waa in la shaqaysan ciidamada waa in ciidamada la shaqaysan waa inayna yeelin siyaasiga dambe inuu noo soo xayxayto nin dambe oo siyaasi inuu noo soo xayxayto waa inayna ka hor istaagna haduu walaalka haduu yahay inaad ka hor istaagtaa tirada walaal shalay baad baabaysay maanta ka yeeli maayo waa inaan dhahana ka soo istaagna ilmaheeni waad aragteen dabad iyo dalba xaaladooda waad aragtaan dadkeeni waad aragtaan kuwa baadiye jiray iyo kuwa balad jirayba xaaladooda waad aragtaan waxa weey Soomaaliya maanta Soomaaliya isku duubmaata hadii nin siyaasi hadii dhaqaayna wadan hadii muxuu hayto goboleedyo hadii meel walba waxa weey inaga danteena waa inaynu fiirsanayo wadankeena iyo dalkeena iyo dadkeena saynu ku noolaan lahayn waa inaan ka fikirnaa sababtoo qofku haduu ka fikirin noloshiisiiba iyo nololkii waxa weey dadkeena qurba joogta sheeganaya ma waxaan ku jiraynaa inaan dalkii xoolo u dirno xoolaheena intee bay dadka masaakiinta wadayaan waxa weeye waad aragtaan dhibaatada wadankii ka socoto waad aragtaan dadkii sida loo bahdilayo waad aragtaan hadda gobolada waagii hore waxa la yiri waaba fiicnaan jireen hadda eber bay noqdeen inta nimankan siyaasiyiinta oo haba meel u ordahayo muxuu hayto bal ilaah baa ku dhaariye bal nin muxuu hayto wadankii iyo dalkeena nagu haysta niman haba gurigiisa ku soo shiraya khayrkay noo wadaan muxuu yahay Soomaaliya waa in gacanta la isqabsada oo laga istaaga oo laga la diidaa in siyaasiyad biyad dambe ka caba Soomaaliya ninkii siyaasi oo muxuu hayso soo mutaxaweynayno albaabka cagta ka saarna waa inaynu nimanka siyaasiyiinta ayo muxuu hayto nimanka dariska uu kala ordahayo waa inaynu albaabka u istaagna waa inaynu u midownaa Soomaali weyne waa inaynu u midownaa Ilaahay idankiisa maanta waa aakhir zaman waad aragteen adduunka waxa ka dhacayo waad aragteen nin qof dhiigiis qaba ama qof xaqiis cunayna inuu saliibaanayn adunkuba waad ogtihiin Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qof baan ku iri muslim xaqiis ama cunay ama dhiig muslim hadeertaan u soo diyaar garoobay inuu dad xaqiis cuno inuu saliibaanayn adunkuba waad ogtihiin dulum laguma liibaano dad hore ku liibaani lahayo ku baraari lahaa wallahi inaan lagu baraarayn laakiin ayagu waa u qabaan inay ku baraarayaan xaqan naas inaan lagu baraarin qof walba waa ogyahay Soomaali xaqeed baa la cunay dhiigeed baa la cabay nafta muxuu hayto naf walba aan looga taginin Soomaali maanta marka waa inay isku tiirsanaataa oo gacanta isqabsataa way ogaadeen waxa uu khayrka iyo waxa uu sharka labadaba way ogyihiin maanta Ilaahay xaqayna waafajiye Ilaahay idankiisa Allah xaqayna waafajiye Soomaali meelaad joogtaan waxa idinkaga tagayaa khayr iyo liibaan baan idinkaga tagayaa iyo Ilaahay inuu idinku kaalmeeyo meel walba aad joogtaan caafimaad Ilaahay idinku siiyo meel aad joogtaan insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.